su'aasha 13aad xukunka laadhuudu muxuu yahay qofka soomanisa ma ciyaari karaa jawaabtu waxay tahay xukunka laadhuudu waa inaanu bannaanayn oo uu xaaraan yahay sida jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen maana sida axaadiistana laga fahmayo axaadiista nebigu calayhi salaatu wasalaam ay ku tusinayso oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man laciba binardi shiir fakaannamaa sabaqa yadahu bilaxmi khinziirin wa dami kii markaa waxa weeye laadhuuda ciyaara wuxuu ka dhigan yahay sidii mid markaa gacmihiisa ku dhammooqay dhiig doofaar iyo hilib doofaar mid gacmihiisa ku dhammuuqay ayuu la mid yahay xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey kaasna waxaa laga tilmaamayaa waa kii ciyaarayay keliya laakiin aan waxba lagu kala helayn ahlucilmigu waxay yidhahdeen haddii wax lagu kala helayo waxay noqonaysaa khamaar marka wuxuu la mid noqonayaa sidii mid hilibka doofaar cunaya ayuu markaa la mid noqonaya laakiin haddii aanu markaa waxa weeye wax lagu kala helayaa aynay jirin ee lagu madadaalanayo maantoo dhan markaa mid doofaar markaa kala fadhayay iyo hilibkii iyo bakhtigii sidaasoo kale inuu shabbaho ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoogu sheegay xadiis kale riwaayo kale waxay sheegaysaa waxa weeye cisyaan inuu ku jiro oo cisyaan baa lagu sheegay inuu ku jiro oo cisyaan la yimi saas aawadeed ruuxa soomani waa inuu iska ilaaliyaa laadhuuda iska ilaaliyaa waayo waa shay xaaraan oo dembi ah oo aan bannaanayn weeye waa inuu markaa iska ilaaliyaa yada iyo waxyaalaha kale markaa shabbahayaba waa inuu aad iyo aad uga fogaadaa oo isaga jiraa